dadka Soomaaliyeed aad iyo aad ruuxaantii waliba gabar Soomaaliyeed oo markii ugu dambeysay aad iyo aad ugu mahadcelisay inaan soo bandhigo walaalaha oo u fiican Ilaahay idinkii xanuunadan hadda aan ka hadlayo haddii intaan sheegay aad samayso tanna aad la kaashato Ilaahay idinka waad ku caafimaadaysaa waa daawada loo yaqaan 1 iyo 2 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله مالك سجلت ويدي السلام الله يشرفه. والله بدنا مرور البوحي كعبدان حنون نذن أو أتكو ديبت بدن أو روحي قالوا يقانو أما حنون نذن سحر كأي إشي وحالهاس بريان دنبنا آذو ملاسوني آذو بطي ما دابا ومدو خير كأوي راضي حمانتين أي بضتي سادرتي waxaan rabaa maanta inaan ku tilmaamo shay hadaad samayso ay hubaal tahay Ilaahay idinka inaad ka bogsanayso saddex shay hadaad samayso saddex qodob hadaad samayso waxa hubaal ah biidhnillaahi tacaala inaad ka bogsanayso xanuunada alla ildaran tahay ee qof kasta aad u tagtay ee quraan kasta laga saaray ee meel walba aad martay ee aad la rafaadsantay la murugsantay la guursan laadahay la dhalilaadahay dhashay Ilaahay baa bixiye waxa la baran laadahay horumar la gaari laadahay jirkaaga iyo naftaada iyo qalbigaaga waa dilay yaani baabi'iyay saddex shay hadaad samayso waad ka guuleysanaysaa biidhnillaahi tacaala midda koobaad intaan u gudbin tilmaanaha aan ku siinayo waxaad ogaataa adduunkan wax iska ah ma jiro wax iska imaada ma jiro qodobka labaad oo kale hadii adiga mar walbo aad ku xisaabtamayso xanuunkan muxuu kaaga tagi laayahay waxaad ogaataa wax walba waxay ku yimaadaan in ficil la yimaado tamani iyo inaad naftaada maaragtay meeriso kuma yimaadaan go'aanka iyo guush waxay ku timaadaa mar walbo inaad ficil joogto ah aad samayso Ilaahayna la kaashato daa'imto intaas waa baraarujin yar qodobka koobaad hadaad rabto inaad waxan ka bogsato biidhnillaahi tacaala halkan qodob hadaad laazimto waa ballan waad ka guuleysanaysaa muxuu yahay xabiibka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam markii la sixiray malaa'iktu ay daaweysay lagu akhriyay saddexda macduudinka lagu akhriyay uu bogsaday nabiga sallallahu alayhi wa sallam muxuu daa'imay miyuu iska seexday miyuu iska jiifsaday miyuu isdhigay miyuu maartay yiri nabi baa tahay Ilaahay baa ku ilaalinay maya nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam noloshiisa oo dhan wuxuu ka dhigay dhikriga Ilaahay marka laga soo tago xir maxaa koow waa u bariyay ma jiro ilaa nabiga sallallahu alayhi wa sallam wuxuu laazimi jiray adkaaru subax wal masaa oo macnaheedu ay tahay Ilaahay buu hoos gali jiray oo kaashan jiray oo tala saaran jiray oo shar oo dhan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku hoos gali jiray waa koow inaad marka nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam talaabada meeshu aad dhigto adkaartu akhriyay aad akhrido nabiga sallallahu alayhi wa sallam wuu daa'imay adkaaru subax wal masaa wuu akhrin jiray maxaa kamid ah ducooyinka radiitu billahi rabban wa bil islaam diina wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan mar walba inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu raali ka yahay iyo diinta iyo nabigiisa iyo mar walba Ilaahayna waxa waajib ku noqonaysa inuu addoonkiisa raali ka noqdo wa qodob koobaad adkaaru subax wal masaa isku tihiin inta calaalkaaga la gaadhin adkaaru subax wal masaa isku tihiin waa koow qodobka labaad oo nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam uu laazim jiray waxa kamida noloshiisa inta soo hadhay oo dhan way xirsi xiran jiray guriga haduu ka baxayo waa koow haduu soo galayo
hadduu seexanayo, hadduu soo tooso, musqusha hadduu gelayo, hadduu ka soo baxo, hadduu cunto cunayo, markuu dhammeeyo, markuu herkiisa u tegayo, markuu maaragtay afurayo, markuu dhar xiranayo, dharka markuu siibo, masaajid markuu gelayo, markuu ka soo baxo, kabaha markuu xiranayo, majlis markuu ka kacayo, markuu maaragtay majlis fadhiisanayo, suuqa markuu gelayo. nabiga sallallahu alayhi wasallam noloshiisa oo dhan waxay ahayd ilaahu ii ilaali, ilaahay buu hoos geli jiray. adigana waxaa laazim oo qodobka labaad ah in aad mar walba laazimto jidku nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam uu maray oo aad xirsi xiratid. waa qodobka labaad. qodobka saddexaad waa laba qodob oo isku jira. kow, wixii lagu daawiyey nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam oo ahaa qul walla qul a'udhu birabbil falaq binaas inay ka badan yihiin. waxaad arkaysaa dad fara badan oo Soomaaliyeed oo meel walba sheekh lagu tilmaamo tagaya isla markaana daawo u doonayo quraanka intuu bil saaro qofku barti xanuunka uu ka bilaabin haddana oo xanuunka tabti ugu soo laabanayo. ma isweydiis adiga naftaada ma isku filan tahay? nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam aayadihi uu ku tilmaamay qofku hadduu akhristo inay ku filan yihiin shar oo dhan ilaahay uga xijaabaya, balaayo dhan ilaahay subxaanahu wa ta'aala uga saarayo. si isku tihiin waa qodobka ugu muhiimsan inaad isku daawaysid qul walla qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas. see sameynaysaa sida soo socoto. nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam mar walba seexanay uu isku tufi jiray, uu ismarin jiray. adigana sidii samee. waxaad kaloo dheeri ku dartaa quraan ku akhriso biyo subax walba cab adoo baahan, waxba aan cunin, afkaaga waxba aan saarin, soo qaado biyo ku tufa cab. hal litir haddaad subax walba cabto oo aad ku tufato adoon waxba cunin, xanuun walbaad ka sheeganayso. waxaa xaqiiq ah muddo 2 weeks ilaa 3 weeks gudaha inaad isbedel weyn isku arki doontid. inaad markaa daa'imtid macawdataynka oo mar walba isku akhridid oo daa'imtid oo aadan dhihin bil baa quraan lagu akhriyay, bil baa wadaadkaa u tagay, 2 weeks u saaray, 3 weeks u saaray, kadibna halkii aad ka bilowdo xanuunka ilaa shadaadiintu kullama haddana ay tagaan kuwa kale unbaa imaanaya. sababta wuxuu u samaysan yahay waa inuu adiga mar walba kusoo weeraro. haddaad kii jirkaaga ku jiray disho in adeerkiisaa jiro oo jirkaaga u furan yahay isla markaana soo galayo. kuwa kale hadday baaba'aan kuwa kale unbaa imaanayo. maxaa yeelay subax walba wuxuu ku soo kacaa oo waagu ugu barya adiga soo kuu dili lahaa, kuu baabiin lahaa, kuu silcin lahaa, naftana kaaga qaadi lahaa. jidka in adeerkii walaalkii u jeexana uu u mari lahaa, sunnadoodana ay u raaci lahaayeen, adigana u tirtiri lahayd. sunnadooda ay haystaan, adigana waa ina sunnada nabiga maxamed sallallahu alayhi wasallam aad ku dhigtid, qabsatid, daa'imtid, mar walba isku daawaysid, waad ka guulaysanaysaa. saa darteed adoo cidla taagan ha calaacalin. qofkan adkaarta akhrinayn oo weysada akhrinayn oo quraan isku akhrinayn oo xirsi xiranayn oo wuxuu nabi maxamed aan sameeynayn yiri u samee aan sameeynayn haddana ma haddana calaacash. qofku wuxuu ku leeyahay wadaad hebel baan u tagay oo hebel baan u tagay oo hebel baan adkaartan akhriya oo sadaqaad baan sameeyaa, laakiin weli ma daawoobin. dib naftaada ugu laabo. noloshaada marka cabir la saaro, meelo badan oo noloshaada ka banaan baa jiro. meelo badan oo noloshaada ka banaan oo adkaartii ka maqan tahay, sadaqadii ka maqan tahay, khayrkii ka maqan yahay, quraanka ka maqan yahay, dikri ka maqan yahay oo banaan baa jiro. meelaha banaan baa laga soo galay. buuxi adkaar ku buuxi, quraan ku buuxi, dikri ku buuxi, sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam ku buuxi. haddaad buuxiso meel laga soo gala male calaacalkan uu ka dhamaanaya. haddaadan buuxin waa lagu soo gelin, mar walbana lagama dhamaanayo. adigana dhabar xanuunka, hurdo la'aanta, walwalka, madax xanuunka, rafaadka, murugta, ilinta joogtada aan lahayn xadka marna ma joojinaysid. saa darteed haddaad rabto inaad guulaysato, ku guulayso jidka nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ku guulaystay. haddaadan ku guulaysanin waa laga guulaysanaya. nolosha adduunku waa labadaas uun, laba wax walban u shaqeeya, habeen iyo maalin, qorax iyo dayax, rag iyo dumar, geed iyo maaragtay iyo geed la'aan. wax walba waa labo, guul iyo guul darro, caafimaad iyo caafimaad darro. hadda ma fahant? wiil iyo gabar. marka noloshu waa labo. haddaadan guulaysan waa laga guulaysan. marka walaalaha ilaahay subxaanahu wa ta'aala haydan barakeeyo. meel kasta joogtaan waa idin jeclahay. waxa idin canaananayo waxa mar walba igu bata oo adduunka meelaha kala gedisan aan tagay mar walba waxa igu bata walaalow intaasoo sanan xanuunsanaa, xanuunkagana wuu jiitamaya. 20 sano waa arkay, 30 sano waa arkay, 35 sano waa arkay, 10 sano waa arkay, 6 bilood waa arkay, 3 bilood waa arkay, 1 sano waa arkay, 2 sano waa arkay. dhammaan markaan dib u wareysto qof walbo 99.2 waxay isku raaceen oo dhammaantood ay ka sameeyeen yihiin inay ka dheer yihiin waxyaalaha diintu amartay ama nabiga sallallahu alayhi wasallam qaabka isku xulaajiye ay ka wada dheer yihiin.
wadaadaan la wada hoos gabran yahay, wadaadka markuu kusoo tufo maalmo yar kusoo akhriyo guriga kusoo laabanayo. su-aasha isweydiinta mudan waxay tahay wadaadka intuu ku saarayo ee aad la joogto iyo muddada aad firaaqada faraha badan aad haysato ka maqantay yaa badan. hadduu intaa shaydaankii la garaacayo madax laga garaacayo wixii jirka ku jira qur-aankii la saarayo, banaanka markaad soo aado muddada aad haysato iyo intaad wadaadka la joogto yaa badan. waxaa badan intaad banaanka joogto. muxuu qabanayaa marka? waxaa lagu yiri markaad seexanayso iska xir sixir, markaad soo kacdo samee, markaad musqusha galayso iska xir sixir, markaad ka soo baxdo iska xir sixir. soo habeenkii maalinta wax kale aan qabanaynin oo waliba dabaysha ah oo jirkaaga dhex gelaya maxay qabanayaan? waxay qabanayaan si adiga mar walbo caafimaadkaaga, guushaada mar walbo ay dhulka u dhigi lahaayeen oo mar walba guuldarraada dhibtaada ay mar walba dhulka keeni lahaayeen. sadarteed saddexda qodob haddaad samaysaan biidni illaahi tacaala waxaa hubaal ah inaad guulaysanaysaan, caafimaadna aad helaysaan. beej soo qaado, buug soo qaado, beej qoro, taariikhda qoro, maalinta qoro, bilow, waqti qabso. 40 maalmood dadkeena waxaa lagu imtixaamay, waxay rabaan inay maanta sameeyaan birina caafimaada. adduunka taasi ma dhacin. wax walba dhib iyo rafaad baa lagu keenaa. وإن نبي محمد صلى الله عليه وسلم ومعلم كون نقطة نلاش وين معلم كون نقطة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم هل هبين وأنا لما يستلم بالقاضي تضبط سما اللي هل كيس وحاول حيو يقولك تضبط بقول الشم بقول سنة اللي هذا إن لا صعب. هل هبين أنا لما يستلم بالجي السعودية مدينة هي مكة نوادرتين أنت كيلومتر اسكو جيران ما يقام الموت بجيرك أي جيتك كوسي جيران هم ما قدام كودرا. suurtagal maaha inaad maanta dhahdo maantaan bilaabay 10 beri baan wadaa waan si maaragtay ma caafimaadeen weli guusha maan gaadhin. guusha gacanta kuma haysatid. nabi ayuu meeqasan xanuunsanaa, nabi maxamed meeqasan la rafaadinayay. adiga jidka hay ku soco, guushana waad gaaraysaa. adoo ceel qodaya lama biyo raadinaya. ceelka marka la qodayo ilaa inta in lag baa la qodaa ilaa biyaha laga gaaro, ilaa guusha laga gaaro, ilaa hadafka laga gaaro. sadarteed jidka hay ilaa guusha aad gaadhana ha soo laabanin. hadhihin way aan u caafimaadi laahay mar walbo aan quraanka isaaro maxaan u xanuunsanayaa haddana daba taalo. nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam allah ku noqdo. nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam markii hal aayad la akhriyo jirkiisa guntin ayaa furmisay uuna cabaadayay. nabiga sallallahu alayhi wasallam uu taahay xanuunka iyo murugta darteed. meesha xabiibkii raxmaanka sallallahu alayhi wasallam xabiib raxmaan uu saa u xanuunsanayo oo leeyahay oo malaa'igta ku akhrinayso oo gudinta u baxayso oo haddana uu xanuunka nin wax la dhawaaqayo. adiga ma raaxaysanaysaa walaal? adiga oo farxsan oo qoslaya mid caafimaadaysa? waa maya. ku tusaale qaada nabiga sallallahu alayhi wasallam. qodobka u dambeeya oo aan rabo inaan ku gabagabeeyo, nabiga sallallahu alayhi wasallam wax walba oo uu sameeyo, wax walba oo nabiga sallallahu alayhi wasallam uu qabto wuxuu ku xiri jiray in ilaahay subhanahu wa ta'ala uu kaalmeeyo. ducooyinka nabiga sallallahu alayhi wasallam maxaa kamid ah? allahumma inni as'aluka thabata fil amr wa 'azimata 'ala rushd. ducada Soomaalidu ma taqaano maanta qabso. allahumma inni as'aluka thabata fil amr wa 'azimata 'ala rushd. wuxuu mar walba nabiga sallallahu alayhi wasallam ilaahay weydiisan jiray in ilaahay subxaanahu wa tacaala arrin markuu uu ku sugo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala arrinta yani markuu nabiga sallallahu alayhi wasallam uu arrin bilaabay inuu ilaahay caziimadeeda iyo go'aankeeda uu haleeshiyo. markuu haleeshiyay nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ilaahay weydiisan jiray inuu ku sugnaado oo uusan ka leexan. maxaa kamid ah ducooyinka nabiga sallallahu alayhi wasallam? allahumma inni as'aluka allahumma inni a'uuduka min al-hawri ba'da al-kawr. ilaahay oo dhamaystir kadib ilaahu gadar hay cali. ودعوينك ما تنا له الماوي وقوة شاشة كو قرن أخرسه لبدا دعوة لازم. هذه المركز ما تبيله لو هو يكذب ولي ماشي بنتاجنا واتاجنان صوت طهي جوشو بهلا iyo godad iyo qodxaan iyo dhib fara badan ayaa ka sokayso. waa inaad bohoshan marka aad ka talaabto buur baa ku gudban. buurta waa inaad ka talaabto. buurta markaad ka talaabtana qodxan baa daadsan. waa inaad qodxanta markaad ka talaabsatana waxa haddana xaga kala daadsan mashaakil kala gedisan baa taal. sadarteed wax walba tusaale waxaad ku qaadataa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam siiradiisa ayaa wax kuugu filan. hal habeen dhag soo celi
مكية مدينة meequu socday nabiga sallallahu alayhi wasallam sadarted intaasan kaaga tagaya qodobka u dambeeyo waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo waxaa jirta daawo dadka Soomaaliyeed aad iyo aad run ahaantii waliba gabar Soomaaliyeed oo markii ugu dambeysay aad iyo aad ugu mahadcelisay inaan u soo bandhigo walaalaha oo u fiican ilaahay idinkii xanuunadan hadda aan ka hadlayo hadii intaan sheegay aad samayso tan aad la kaashato ilaahay idinkii waad ku caafimaadaysaa waa daawada loo yaqaan 1 iyo 2 dad badan way qaateen baa laga yaabaa laakiin waxaan rabaa inaan walaalaha u sheego qaabka ugu fiican ee qofka u habboonta inuu u qaato daawadu waa taa aad u jeedaan waxaa lagu talagalay xanuunada hadduu sixriya haday il tahay qaabku qofku u qaadanayana waa laba waqti subax inuu hal qaado ka qaato isagoo baahan waxba aan cunin after 30 minutes ama 40 minutes kadibna hal litir oo tahliil ah oo isagu uu tuftay oo qulwale iyo qulab farac iyo qurbanaas kadib uu ka daba cabo kadibna saliidaha qofku uu marsado saliidahaas qofku uu marsado habeenkii markuu seexanayo waxa jira kuwa marsanayo ilaa waxa la wax mar walba jirkaaga inaad balaadan ka xiftido habeenkii markaad seexanayso waxaad marsanaysaa saliidaas tin ilaa cirib ayaad marsanaysaa ma marsatay kadib waxaad ka daba marinaysaa saliidan binkiga ah oo M1 Soomaali maartay loo yaqaano dad badan ay aad uga caafimaadeen saliida waxay aad kaaga caawinaysaa inta badan markii xanuunadan qofka ay ataagaan waxay ka ataagayaan meelaha ugu muhiimsan qofka uu ka soconayo maxaa kamid ah dhabarka murqaha jirkaaga oo dhan qofka marka muxuu ku sameeyaa uu ku masaajeen maxaa yeelay ilaa waxaan dhiigay la socdaan jirkay ay ku dhex socdaan halbowlayaasha dhiigga qaaday ku milmaan oo raacaan kadib maxaad sameyn waad ku masaajeenaysaa korka ayaad uga daliigaysaa ama uga duugaysaa hadba saad u taqaano ilaahay idinkii qofkii inta sameeyo oo wado daawooyinkan oo sida u qaato subaxii qaado habeenkii qaado cuntada ka hor kadib tahliisha cabo kadibna saliidaha marsado adkaartiina sida u akhristo ya sida isku daaweeya noloshiisa iyo maaragtay xayaatadiisana maaragtay aan daldalool u samaynin waxa hubaal ah ilaahay idinkii inaad caafimaadayso waxa ilaahay idinkii hubaal ah inaad caafimaadayso waad ku caafimaadaysaa ilaahay idinkii daawadan waxaad ka helaysaa Nairobi waad ka helaysaa xarunta Nairobi Muqdisho waad ka helin Hargeysa waad ka helin garowana waad ka helin sidoo kale yaa isticmaali karo ilmaha wixii ka weyn 10 jir ilaa dadka waaweyn ayaa loogu talagalay walow dadka qaar ay siiyaan 7 jir iyo 8 jir maadaama daawada ay tahay organic wax oo kiimika ama wax qofku wax u dhaweyn aysan ku jirin laakiin mar walba dooskada la ilaaliyo oo aadan ku xad gudbin daawada wax way ku taraysaa hal shayna samee tahliisha badso kullama tahliisha aad badsato waad ku guuleysanaysaa aad baan u dheereeyay ilaahay subhanahu wa ta'ala ha idin barakeeyo allah idin karaameeyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh